السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا شرفت بدنا وادي سلام دمانتين ما انت وعن كهلنا موضوع مهم وحوي كورونا فيروس موضوعه انه ان شاء الله سيفي عنو دغيسنو كسو دواده موضوع ان شاء الله dadweynuhu imka meel kasta aynu joogno sheeko kale ma jirto inta waxa laga hadlayaa coronavirus waxa la yiraahdaa COVID-19 cudurka imka waqtigan marka adduunka dilaacay coronavirus video maanta inuu hayaa gabadh dhakhtarad Moroccan ah si fiican waxay uga hadlaysaa waxyaalo muhiim ah qaabka moogta looga hor iman lahaa cudurkaas ay ka hadlaysaa waxaan noogu turjumayaa insha Allah af Soomaali marka aanu si fiican u dhageysano insha Allah taala marka hore fikrad yar baan ka siinayaa coronavirus waa maxay طبعا وقتين adduunkana ku noolahay virusyadu aad u fara badan yihiin waxay u kala qaybsamaan family ama caa'ilado virusyadu coronavirus noocan iminka adduunka moogtahay ku soo biiray waa noocan hore loo arag wuxuu ka dilaacay magaalada la yiraahdo Wuhan China magaaladaas ka dilaacay Wuhan dad fara badan baa ku dhintay waxa ku dhintay intaas oo kun oo qof baa ku dhintay xitaa maalin dhawto waxa laga hadlayay markuu cudurkaas ku dilaacay China dhakhtarka ninka ugu weyn meesha daweeyay dhakhtarka jooga dhakhtarada Wuhan dhakhtar Chinese wuxuu ku dhintay cudurka waa cudur cajiib weeye wuxuu ka bilaabmaa xumad ama fever qofka xumad baa ku dhacaysa hadhowto dry cough waxa la yiraahdo ama qufac maaragtay dry ama qufac qalalan qufac macnaha waxba ka soo baxay qufac caadi ah dry ah week kadib waxaad arkaysaa waxa la yiraahdo shortness of breath waxa weeye qofka naxaskii si fiican u neefsan maayo naxaska ku dhigaya wuxuu dareemayaa maaragtay xanuun muruqyada dhan baa xanuunaya madaxa xanuunaya marka adigu waxyaalahaas oo kale ayuu ku bilowmaa cudurkan COVID-19 cudurkan coronavirus sanbabada iyo maaragtay hawadu meesha ay marto saasa loo kala qaadaa waxa loo kala qaadaa hawada dhinaca hawada maaragtay qofku markuu qufaco ama maaragtay andhuuf wuxuu ka soo baxaan qofkii kale markay u gudubto ayaa moogtahay cudurka loo kala qaadaa immune systemkaaguna ama nidaamka difaaca dadka waa muhiim jiddan qofku inuu moogtahay immune systemkiisu inuu adag yahay oo waxa cudurada ka celinaya in maaragtay nidaamkaas uu adag yahay si aad viruska oo dhan isaga ilaalisid dhakhtaradu maanta waxay ka hadlaysaa mowduucaas bal aan eegno waxay ku bilowdo aynu turjumna insha Allah ادويه نعرفوها كامل اللي هما لي انتيبيوتيكس امبيسيلين waxay kaga bilowday dawooyinka la isku daweeyay maaragtay virusyada loo qaato ama bakteeriyada loo qaato ampicillin amoxicillin bay ka hadlaysaa bal aynu eegno waxay ku bilowday سيسيلين كل هذه الادويه اموكسيسيلين كل هذه الادويه نشربها ادخلنا البكتيريا waxay tiri dawooyinkan oo dhan waxa weeye bakteeriyada ay disha si aynu uga takhalusno ama bakteeriyada moogtahay isaga fogeyno baynu dawooyinkan oo dhan u cunnaa 10 ايام اسبوع 10 ايام طبعا casho ama laba week gudahood bay tiri ayaynu dawooyinka cunnaa kadib viruskii ama cudurka waa inaga tagayaa من اتخلص من البكتيريا الان الفيروس والكورونا فيروس بالذات اقوى waxay tiri waqtigan aynu joogno viruska ama coronavirus marka laga hadlo gaar ahaan uu ka awood badan yahay دواء ضد الكورونا فيروس هو الجهاز المناعي waxay tiri waqtigan aynu joogno dawada waxa ugu muhiimsan ee looga hor iman karo coronavirus waa maxay waxa weeye nidaamka difaaca jirka ama immune system ama الجهاز المناعي بعرف تراده muxuu jihaaskaas sameeyaa eegno كل واحد فينا إلى كل من يريد أن يحمي نفسه من هذا الفيروس عليك أن تحفظ جهازك المناعي waxay tiri qof kasta oo raba inuu cudurka iska ilaaliyo coronavirus waa inaad adkaysaa nidaamka jirkaaga difaacaya inaad adkaysaa أول شيء ابتعد عن كل ما يضاعف جهازك المناعي marka ugu horeysa waxay tiri waxaad ka fogaataa wax kasta oo immune systemkaaga ama nidaamka difaaca jirka wax kasta oo dib u keenaya ama culays ku haya waa inaad iska fogeysaa ابتعد عن كل من يضاعف وينقص من فعالية الجهاز المناعي ما الذي يفعل هذا أو ما ka fogow bay tiri wax kasta oo maaragtay dib u keenaya jihaaz المناعي ka fogow oo iskana ilaali الذي يضاعف وينقص من فعالية الجهاز المناعي الاكتئاب waxay tiri waxyaalaha maxaa keena bay tiri nidaamka difaaca jirka waxyaalaha dhibta oo keenta maxaa kamid ah bay tiri waxay ku bilowday الاكتئاب kelmadda اكتئاب waa kelmad carbeed waxa weeye qofku marka uu yani kelmad ku dhow stresska مثلا qof baa dhibaato ku dhacday culays مثلا shaqadii baa laga eriyay ama qof baa ka dhintay ka geeriyooday ama dib adigu wax moogtahay uu awood uusan u hayn inuu maaragtay wixii inuu dul qaato ku adkaada
waxaa laga yaabaa qofkii inuu qol isku xiro oo maanta oo dhan dhowr week maagta cid ba la hadlin oo telefoonkiisaba inuu switch off ka dhigo taasaa la dhahaa ikti'aab. التوتر tawaturka waxa weeye waa baqdinta, waa cabsida, waa alkhawf. مثلا qof baa maanta imtixaan buu leeyahay, wuu baqayaa, wuu gariirayaa. qof baa مثلا meel baa shaqo loogu ballan qaaday, interview baa galay, waxaa la yidhi wallahi shaqadaas waxay hadaadan helin waa kuu dhamaatay, meel kale khalaas dhibaata. marka maalinta dhow fikiraya lama helayaa, ma helayo, imtixaankii ma ku najaxay, natiijadu way soo baxaysaa. taasaa la yidhahdaa tawaturka. التفكير السلبي tafkiir salbi waxa weeye markaad ku fikiraysid daa'iman wax baad ku fikiraysaa aan loo baahnayn oo maaragtay dhib kuu keenaya, meelo qaladaad gelaysaa, aad ku fikiraysaa 24 saaca fikir yacni aan loo baahnayn oo aan wax niyadda ku dhisay aadan ku fikirayn oo aan fiicnayn. الغضب والانفعال iyo alqadab walinficaal waa cadhada weeye. cadhada qofku inuu wixii cadhoodo oo xanaaqo oo maaragtay dee qayliyo oo taa lafteedu waa khatar weeye. 5 أشياء 5 wax bay tiri ayaan idiin sheegay oo dhibta keenta nidaamka difaaca jirka baabi'isa. الاكتئاب، التفكير السلبي، التوتر، الانفعال والغضب. ابتعد عن هؤلاء الخمسة. الانفعال والغضب waa shantii way sheegtay. غضب waa cadhada, infacaalkuna waxa weeye marka uu qofku xanaaqo actionka ka soo baxa weeye, actionkii ka soo baxa intuu qayliyo ama intuu maaragtay caytamo waxaasoo dhan weeye. لماذا؟ لأنه في هذا أثناء التوتر أو الانفعال يفرز مادة الكورتيزول. waa mawduuc cajiib ah. waxay tiri marka uu qofku xanaaqo ama moralku ka jabo ama ikti'aab ku dhaco ama stress ku dhaco, waxay ku kalifaysaa jidhka inuu sii daayo hormoon la yidhaahdo cortisol. hormoonkaasu jidhku wuxuu ka soo baxaa weliba dee in fara badan buu sii daayaa marka uu qofku waxaas ku dhaco. hormoon cortisol baa ka soo baxa jidhka. الكورتيزول هو إيمينوسوبريسور. إيش معنى إيمينوسوب؟ gabadh waa Maroccan weeye, Faransiis buu ka hadlaysaa. immunosuppressant English marka la yidhahdo waxaa la yidhahdaa immunosuppressant. immunosuppressantna waxa weeye waa kelmad haddaynu af Soomaali ku turjumno waxa weeye waxyaalaha nidaamka difaaca jirka ka hor yimaada, suppress ama istaajiya. immunosuppressant مثلا gaariga oo kale break baan haysanaa. gaarigu markuu xoog u socdo oo aad traffic light ku soo dhowdahay waad istaajinaysaa. maxaad ku istaajinaysaa? break suppress uu istaajinayaa. waxaa la yidhahdaa immunosuppressant, waxyaalaha istaajiya nidaamka difaaca jirka, istaajiya inuu shaqadii laga rabay inuu qabto. معناتها سيكبت الجهاز المناعي. سيكبت بيتري كبت بو سمينيا الجهاز المناعي. كبت waa maxay? wuxuu istaajinaya marka la yiraahdo qofku shahawaad baa ku jirta jirkiisa oo shahawaadkaas inuu wax kasta oo inuu galo raba waxyaalaha xaraanta ah tan ashahwa nafta doonaysa. marka waxaad oranaysaa yakbit الشهوات، يكبت جماعة ama yakbit الشهوة. يعني wixii moogtahay naftu ay jeceshahay ilaahay raalli ka ahay qof markuu wixii jeclaado kabad ku sameynaysaa yakbit جماعه ama wixii moogtahay kabt للشهوات. بركاسة معناها زيادة نجدنا. الغضب والانفعال، غضب 5 دقائق يضاعف الجهاز المناعي مدة 5 ساعات. عجيب. waxay tiri 5 daqiiqo oo cadho ah. tan waad cadhootay 5 minid ama 5 daqiiqo ee cadhada ah 5 saacadood bay ku sameynaysaa nidaamka difaaca jidhka kabt ama suppress ama inay istaajiso ama inay ka hortimaado. cajiib weeye. 5 saacadood bay kugu kalifaysaa 5 minid ee maaragtay cadhada ah inay 5 saacadood immune systemka ama jihaaz المناعيga ama nidaamka difaaca jirka inay istaajiso oo dhib u keento. كي تحمي نفسك من الكورونا فيروس. أول خطوة si aad bartabay ku soo celisay doktoradu waxay tiri si aad isaga ilaalisid ula dagaalantid corona virus inta maxaad sameynaysaa؟ ابتعد عن القتلة ال5. ka fogow 5 qaatil. القتلة ال5 5 qaatil the 5 killers ka fogow iyaga moogtay difaaca jirka ka baabiinaya. أو التوتر، التفكير السلبي، الاكتئاب، الانفعال والغضب. كل هذه الأفعال ال5 shantii waxa aynu sheegnay bay nagu soo celisay, aynu videoga barigiisa ku sharaxnay bay nagu soo celisay tiri shantaa ka fogow تضاعف من جهاز المناعي. waxay dilaysaa ama daciif bay ka dhigaysaa nidaamka difaaca jidhka immune system. ابتعد عنها. كذلك احموا أبناءكم من التوتر يا أمهات ويا آباء. waxay tiri aabayaasha iyo hooyooyinka ilmihiinana ka ilaaliya tawaturka ama cadhada ama moogtahay ilmihii inuu stress ku dhaco, laanna taa lafteedu waxay u kalifaysaa inuu moogtahay ilmaha jirkoodu inuu daciif ka noqdo nidaamka difaaca jirka. معظم الأمهات والآباء للأسف قد يكونون سبب في تضعيف الجهاز المناعي أطفال. لماذا؟ waxaa la yidhi waalideenku door weyn bay ka ciyaaraan inay sabab u yihiin inuu ilmaha yar jirkooda nidaamka difaaca jirku inuu daciif noqdo. door weyn bay ka ciyaaraan. waana maxay؟ بالضرب، باللعب،
اللوم والنقد والتوتر. inay dilaan, inay maagaan, inay caayaan, waxyaalahaas oo dhan ilmaha yar stress baa ku dhacaya. روح تقرأ روح راجع الاختبارات. orod tag wax soo akhriso, saaqid iyo saaqid baa tag wax soo akhriso, haddii kale waad dhacaysaa imtixaanka. haddaad dhacdidna yani waa ilmihii waa loo hanjabaya moogta. ilmihii yaraa waxaa ku dhacaya khalkhal, stress baa ku dhacaya. هونوا عليهم. u qaboojiya ilmaha yaryar, ku xanaaqina, cabsi ha gelinin, u qabooji, stress ha gelinin. بالعقل عليهم. اغمروهم بالحب. ilmaha yar soo dhaweeya, jeclaada. حب لا شرطي. احضنوا أولادكم. يعني jacayl aan sharad lahayn. ha oranin haddaad waxaa samaysid waa inan fiican baa tahay, waa ku jeclahay, waa caynka may. yani ilmihii yaraa hadduu qalad galo yani macnaha haddii anigu kuma jecli weye oo dhib badan tahay, mashaakil baad keentay. كل هذه الأفعال تساعد على تقوية الجهاز المناعي عند الطفل. afcaaltaasoo dhan marka aad samaysid oo ilmaha waxaa ka fogeysid, nidaamka difaaca jirka ilmuhu wuu adkaanayaa, immune systemkiisu wuu adkaanayaa. marka waxaas dhan laga fogeeyo. أعيد الكورونا فيروس دواؤه الجهاز المناعي كل. waa runteed waxay tiri coronavirus dawadeedu waa maxay? jihaaz almanaaci in la adkeeyo. كل واحد فينا يملك الدواء ضد هذا الفيروس. qof kasta dawada isagaa haysta oo viruska ka hor iman lahaa. فاحمي نفسك. الآن كيف أستطيع أن أرفع أو أقوي جهاز مناعي؟ sidee baan iminka aljihaaz almanaaci ama nidaamka difaaca jirka sidee baan u adkayn karaa? sidee baan uga dhigi karaa nidaam adag? 5 أدوات. shan wax baa jira bay tiri. shantaa wax waxay kugu caawinayaan nidaamka difaaca jirka inaad ku adkaysid. الأداة الأولى الماء البارد. ta ugu horeysa waxa weeye biyaha qabow. كاين طريقة نعطوها الويم أوف، اسمها طريقة الماء البارد. الاستحمام بالماء البارد جربتها ولكن لا أنصح بها كثيرا لأن كاين ناس بزاف ما يقدروش يستحملوها. waxay tiri in lagu maydho biyaha qabow way fiican tahay, laakiin waan tijaabiyey, laakiin way adag tahay, dadka way ku adag tahay inay biyo qabow oo iyadoo ay dhaxan tahay ay ku maydhaan, way ku adag tahay bay tiri. ماذا أفعل؟ نرجع إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. waxaan u soo noqonaynaa siiradii nabiga sal ly wasalam. إسباغ الوضوء على المكاره. xadiis nabowi oo ka sheekeynaya weysada oo uu yiri nabiga sal salam isbaaqi alwuduuc cala almakaari. waxa weeye meelaha ma ogtahay waqtiyada dhaxanta ah matalan oo jawgu xun yahay ayaad biyo qabow ku weysaysanaysaa. توضأ بالماء البارد وأسبغ الوضوء على المكاره. isbaaq alwuduuc waxa marka aad biyaha dee si fiican maaragtay ugu shubtid meelaha maaragtay aad ka dareemaysid dhaxanta matalan gacmaha oo kale, dhegaha oo kale, meelaha maaragtay baniaadamku wuxuu jecel yahay markay maaragtay waqtigu kulul yahay in uu ku qubaysto biyo qabow. marka uu waqtigu ama jawguna yahay qabow yahay wuxuu jecel yahay qofka baniaadamku naftu waxay jeceshahay inuu ku maydho biyo kulul. laakiin isbaaq alwuduuc cala almakaari waxa weeye inaad iyadoo ay dhaxan tahay aad biyo qabow ku weysaysid. الماء البارد. ثانيا الصوم. talabaad waxay tiri waa soonka in la soomo. يا جماعة الصوم شوف إلى كل من يريد هذه الآن ما أقوله كلام علمي. waxay tiri hadalkan aan ka hadlayo sheegayo waa hadal moogtahay cilmi ah oo macnaha de hore loo arkay oo hore looga soo shaqeeyey oo hore loo tijaabiyey. صوم يا جماعة الصوم يقوي من الجهاز المناعي. waxay tiri qofku markuu soomo nidaamka difaaca jirka ama jihaaz almanaaci ama immune system ayaa adkaanaya. في الصوم أيضا صوم 3 أيام متتالية. markaad soomaysid waxay tiri 3 casho oo kala dambaysa aad soontid ayaa fiican. يجدد الجهاز المناعي بشكل كلي. wuu cusbaysiinayaa nidaamka difaaca jirka wax cusub buu ka dhigayaa oo 3 casho oo kala dambaysa. الصوم المنقطع صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس يجدد من الجهاز المناعي. soonka kala googo-an sida nabiga sal salam isniinta iyo khamiistu soomi jiray wuu kuu cusbaysiinayaa nidaamka difaaca jirka, unugyo cusub ayuu kuu samaynayaa. الخلايا المناعية تموت ولابد من أن تجدد. khalaaya almanaaciya waxa weeye waa unugyada jirkaaga ku jira ee kaa difaacaya cudurrada iyo xanuunka. way cusbaysiinaysaa bay tiri markuu qofku soomo unugyo cusub ayaa kuu dhalanaya oo kaa difaacaya cudurrada oo kuwii hore markay dhintaan kuwo cusub baa ku dhalanaya. الصوم يساعد على تجديد الخلايا المناعية. soonku wuxuu kugu caawinayaa inuu kuu cusbaysiiyo unugyada jirkaaga difaaca. صوم 3 أيام متتالية يعيد تجديد الجهاز المناعي ككل. 3 casho markaad soontid مثلا bishiiba oo isku xidhan taa lafteed waxa weeye way kuu cusbaysiinaysaa nidaamka jirka difaaca. أعيد الماء البارد أسباغ الوضوء على المكاره. way ku soo celisay biyihii qabooba. صوم. ثالثا soomkana wata ta saddexaad waa maxay dabay tiri النوم الصحي. يا جماعة النوم الصحي لو الإنسان حاب يحافظ على صحته العقلية لابد
أن ينام نوم صحي. waxay tiri hurdada caafimaadka leh waa maxay? waa hurdada waqti fiican la seexdo, saacado fiican la seexdo ayaa muhiim ah, لأنه مسكحته وبانته وحيراس. أثناء النوم أيضا للآباء والأمهات اللي خايفين على دراسة أولادهم، أثناء النوم الصحي التم وتتحول الذاكرة السريعة إلى الذاكرة الراسخة. أبياش هويوين كعروتو ذا كور وريا إني يردلعان يدباتو كل عادي، ومهم ويلمه إني سحدان لأنه ميموري ماركت أما الذاكرة ذا ماركت ضعيف كآيستان ماركت المي سحدو ذاكرة وقت كينسا أو المي حسوستي سوات كان في عنانسا تسروح يكون عاونسا وحبرشة. رابع شيء الأكل الصحي. أفراد هوية عنتظم الصحي سليم كا. علاش نركز على الأكل يا جماعة؟ هناك ما يسمى بالعقل الأول والعقل الثاني. waxay tiri waxaa jira cuntada bay tiri si fiican u fiirino cuntada cunayno waxaa jira العقل الأول مسكح كواد iyo مسكح labaad waxay ka bilaabaysaa مسكح labaad waa maxay الجهاز الهضمي هو الأمعاء مسكح labaad waxa weeye مسكحda waa naqaana talabaad waxay tiri macnihiisu waxa weeye waa الجهاز الهضمي jirkaaga qaybta ka mas'uulka cuntada marka aad maaragtay la shiido iyo cuntada meesha ay gasho waxa الجهاز الهضمي ama digestive system taas bay u bixisay العقل الثاني. فأنا لما أحافظ على البكتيريا المتواجدة بشكل فيزيولوجي في الأمعاء أحافظ على الجهاز المناعي. waxay tiri marka aan dhowro bakteeriyada ku jirta jidhka marka aan dhowro way ii fiican tahay. طيب kelmadda bakteeriya markaynu maqallo طبعا waxa qofka maskaxdiisa waxa gelaysa bakteeriyadu waa baasha dadka disha bakteeriya iyo virus iyo parasite iyo waa baasha dadka disha. طيب sidee bay caloosha ugu jirtaa? way jirtaa bakteeriya jirta naafica oo bakteeriya moogtahay faa'iido la jirta jirka gudihiisa ku jirta waxay la shaqeysaa jihaaz الهضمي cuntada marka uu qofku cuno oo cuntada la shiidayo wixii fiicnaa jirka lagu qaybinayo bakteeriyadaas door weyn bay ka ciyaartaa waxyaalahaas marka bakteeriyadaas waa muhiim inaynu ilaalino si ay jirkeena u caawinto إنها من أول الواجهة. وانا مهم waxay tiri ha tii hore laway waxay tiri marka aad jihaaz digestive system ama الجهاز الهضمي ka cuntada ka mas'uulka ah markaad ka ilaalisid bakteeriyada baad ilaalinaysaa ku caawinaysay kadibna الجهاز المناعي نظامك الدفاع جدك أياد إسقنا إلى ليس. كذلك التوتر يقضي على بكتيريا الأمعاء فلذلك عندنا ما يسمى القولون العصبي. وحي تري التوتر معناها قفكم مركو كعب سنة فكر كيسو مارت انت هم وين مسكح دقليو لباتو جرتو وحضرك السادات كقار كود علوشها لقى قبطة قفك ورني ما انت نيو ما انت رحمة نكره لباتوين بايقو فرمتي وحمة نكره وذا بدوارك او كاشتكو وحالي هذا القولون العصبي قولون العصبي قفك سوكلو كدعه مركو موقتها ستريس كدعو انت فكريو علوشنا دبوي بيوكينسا بكتيريا دي كعاونيسا وين دمانيسا كدبنا محاد عيا دفاع النظام كدفاع الشركة دبوي بسوق جالسة markay dib soo gaadhana hadhow bakteeriyada iyo virusidii caadi qofka u soo galiyaan jirkiisa oo dib u keenayaan. فحافظوا واختاروا أكلاتكم. ilaaliya ama barta ama doorta cuntooyinka aad cunaysaan waa muhiim weeye. imka hadda ilmihii yaryara wadamada badankooda adduunka dee ilmihii yaryara wax kaloo ma cunayaan qado saliima loo keenayaa wuxuu ku reemay waxaa rabaa burger yikaan pizza fish and chips chicken and chips cunto moogtay junk food la yiraahdo. ilmihii adduunka meel kasta ay joogaan wadan kasta waxaa la baray ilmihii yaraa cunto aan saxi ahayn marka taasna waa adag tahay sida yani waa muhiim weeye in ilmaha cunto saxi ah in la siiyo waa muhiim weeye. خامس شيء وأروع شيء هو التأمل الواعي. ugu fiican ee ugu muhiimsan waxay tiri wax la yiraahdo التأمل الواعي كلمة عجيبة weeye. غرب يحكيوا على التأمل الواعي. أنا أنصح بقيام الليل والخشوع في الصلاة. waxay tiri anigu waxaan ku weynayaa waxyaalaha muhiimka waa maxay reer galbeedku waxa la dhaho ta'amul bay yiraahdaan bay leeyihiin waxa la yiraahdo ta'amul inuu qofkii fikiro oo yoga moogtay sportkan la dhaho yoga intaad fadhiisatid oo adduunka ka fogaatid oo maskaxdaada waxyaalahaas ay ugu sameeyaan laakiin anagu waxay tiri قيام الليل مسكحة فريش كده أو مركز تكتير قيام الليل فيه خشوع. الخشوع في الصلاة حيخليك تكون واعي. marka aad salaada khushuuc aad wax kasta adduunka ka tagtid oo gadaal dhigtid oo ilaahay uun bas ku fikirtid iyo khalqigiisa iyo maskaxdaada aad khalaas yani malakuut illah maarta aad raacdid wax weeye taas lafteedu jirkaaga wax badan bay ka bedelaysaa. To be aware انك تكون واعي في اللحظة الآن. يعني وقتك aad taagan tahay marka aad wax kasta ka tagtid oo aad maskaxdaada gelisid ilaahay subxaanahu wa ta'aala. قيام الليل أيضاً يعلمك ما يسمى بالتأمل الواعي الرائع. inaad maaragtay maskaxdaadu inay khalaas inaad fikirkaagu inuu isbedelo waxyaalo badan oo maaragtay maskaxdaadu nadiif noqoto saafi noqoto ayuu ku baray qiyaam leelkaas. subxaanallah waa kalaam saxiix weeye xitaa ilaahay baa quraankiisa ku sheegay in wax kasta laga fikiro oo maskaxdaada aad ku xidhid ilaahay
واد كفكرتي آيات فربدن باجرت موقت القرآن يعني سبحان الله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ألا تعالى الإنسان حين من الدهر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات للألباب إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت آيات فربدن باجرتا oo magtay miskaxdaadu meel kale waxay tagaysaa subxaanallah fi malakuut aakhar marka laga hadlayo ta'amulka ama fikirka marka laga hadlayo التأمل الواعي يخلي الإنسان ويخلي الجهاز المناعي يتجدد kelmadaas point ka samima waxay tiri ta'amulka imka laga hadlayo fikirka iyo sabab weyn waxay ka dhigaysaa inuu qofka bani aadanka ah nidaamka difaaca jirkaagu isbedelaya laana aqligaagii wuxuu noqday khalaas waa saliim saafi buu noqday waxaad stresskii oo dhan baa ka tegay hamigii fikirkii marka aad meel u jeesatid oo aad khushuuc qiyaam leelka moogtahay dadku dhan hurdaan sabab u noqonaysa inuu nidaamka difaacu inuu adkeeyo لسبب وين نقولنسا نصيحتي اليوم إلى كل من يريد أن يتفادى الكورونا فيروس waxay tiri waanta waanadeedu wax weeye qof kasta oo raba inuu كورونا فيروس iska ilaaliyo waxaad samaysaa ابتعد عن كل من يضاعف الجهاز المناعي ابتعد كفوق wax kasta oo جهاز المناعي ama nidaamka difaaca jirka dib u keenaya kafogo waxaas oo dhan markay nidaamkaasu baabo dib weyn ma soo gaaraysa التوتر عن الاكتئاب عن التفكير السلبي الانفعال والغضب shantii wax ay noo sheegtay bay tiri shantaa wax iska ilaali haddaad iska ilaalisid jirkaagu saliim buu noqonayaa kadibna difaac adag baad yeelanaysaa ka hor yimaada وما يقوي الجهاز المناعي 5 أشياء الجهاز المناعينا nidaamka difaaca jirka waxa adkeeyana waa shantii wax aynu hore u sheegnay weeye البارد الصوم النوم الصحي الأكل الصحي والصلاة والخشوع في الصلاة وقيام الليل كل هذا يؤديك إلى التأمل الواعي ويحمينا عافانا الله وإياكم لكم من كل جزيل الشكر والتقدير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين مسي دكتور waxay tiri shantii wax aynu hore u sheegnay shanta ku adkoobay tiri shantaasu door weyn ka ciyaaraysa in difaaca jirkaagu adkaado sheekay baa idin sheegay cajiib waxyaalo cajiib idin sheegaya wadamada Afrika qaaran ku soo arkay cudurka malaariyada oo kale midna malaariyada waxa keenta parasite ama kaneeco keenta malaariyada kaneecada waxa la yiraahdaa anopheles waa dhowr nooc weey plasmodium falciparum baa ugu weyn oo loo yaqaan wadan baad arkaysaa wadamada Afrika ay malaariyadu aad moogtay caan ugu tahay guribad gelaysaa guriga waxa laga yaabaa inay ku nool yihiin 5 qof ama 6 qof waxa laga yaabaa 4 qof oo guriga jooga inuu cudurkaas ku dhaco malaariyadu dhowrkii biloodba hal mar ku dhaco ama midna 2-3 biloodba soo noqnoqdo oo dadku dhan ku dhaco waxa dhici karta qof kamid ah reerka guriga jooga kuma dhaco weligii maxaa inuu kullu guriga isla same yani waxa ku dhasheen isku xaafadii isku guriga ku wada dhasheen kaneecadani way imanaysaa iyada oo parasite-kii haysa waxay ku mudaysaa irbadeeda qof ku mudaysaa markay ku muddo dabcan qof kale ka soo qaatay oo uu ku jiro parasite-kii malaariyadu plasmodiumku qof kale ku mudaysaa kii kale uu qaadaya hadhowto astaamooyinka ka muuqanayo waa la garanay qofka malaariya qabo tayib maxay ka kale u dhici weydi qofkan kale waa arkay dad baan arkay weligeed ku dhicin oo wadamo Afrika jooga weligood malaariya ku dhicin maxaa inuu way ku dhasheen meeshaas way joogaan qaar xitaa martibay ku yimaadeen waxbay ka baranayeen sababtu waa maxay waa mid kaliya waa nidaamka difaaca jirka kan nidaamka difaaca jirkiisu daciif weeye ama sabab badan baa jira marka ay kaneecadu ay saa ugu muddo irbadeeda yar geliso cudurkii uu ka qaado ma ay afkeeda ku haysay macluusheeda ka soo saartay ay kan ku muddo taban iyadu uma jeedo inay ma garanayso waxan laakiin waxa weeye waa cunta u taabis dhiigaas leedahay nuug markii dhiigiis tirada nuug ayuu qofkii soo raacay wixii afkeeda ku haysay qof kale ka soo qaaday ka kale ku dhici maayo sababtu ah difaaca jirkiisa adag waa wax subhanallah yani asbaabahaas la dhici karta inuu ilaahay ku waafajiyay يا أسباب كلا جرو مقتاي دو قف كلشوا نظام دفاع ضد بوليه ولجد يلين حتى هديك بقلال كانوا استنادوا لي كقاعدة أما بكتيريا دو شركة ساقشوا مستحيل يقوم في السنة كل عام لأن نظام كدفكي دفاعي ساعدك مركا إن شاء الله إنه كفاية السنة 10 أنا وما سنتين إن شاء الله ده channel كان كفاية ديستا سبسكرايب كسارة إن شاء الله جنبريل كان تابع سي واحد أسبوع ضن يدين سوق إن شاء الله تعالى ومدة سوماليتنا للشر قرية خير كجارسية إن شاء الله ملكستا دي لايك أنا هكون بخيرنا إن شاء الله تعالى أدبر السلامي حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته